السلام عليكم سودو هذا أصحابك وحرين جنالك وقالك ما أنت حنكك هذا لدونا عانها أريقا فإيدوينك إليهن وحنكو سوكو بدونا تدب فإيدو إليهن عانها أريقا هدي أكو عصبتها جنالك سبسكرايب نوصار جنبالك أنا فرصي في فيديو عصب كوسو قاران هدي أفهمك كتر سنتهاني لاقي شير نوصار سيدات كريوسي قاران وغن فإيدستان هويوين بدن waxaan kusoo koobi doonaa 7 faa'iido ay leeyihiin caanaha ariga faa'iidada koowaad oo ah waxa ku yar maxaa la xasaasiyada ilmaha ay ka qaadaan borotiinka caanaha sababtoo ah caanaha lo'da ee dadka inta badan isticmaalaan caanaha lo'da waxa said ugu badan borotiinka marka caanahan oo ariga waxa ku yar borotiinka hadii cunuga uu qabo kala xasaasiyada borotiinka wuxuu sameyn karaa maxaa la caanahan aasisid ma kasoo muuqaysa sababtoo ah way ku yar yihiin borotiinka caanaha way ku yar yihiin taas waa faa'iidada koowaad faa'iidada labaad waxay tahay dheefshiidku u fudud yahay inuu maxaa la jajabiyo jirkan uu ka faa'iideysto waxa nafaqo iyo ku jiro oo kale inuu jirka ka nuugo fududaa sababtoo ah borotiinada yana lagu dhahay hadii borotiinada badan yihiin oo kale dheefshiidku waqtiga qaadanaya inuu shiido marka tan dheefshiidku u fududahay inuu shiido jirkana u fududahay inuu ka nuugo maxaa la fiitamiinada iyo macdanta wixii ku jira caanaha faa'iido ah sababtoo ah borotiinkooda yar taas saddexaad waxa waaye calcium fiican ayaa ku jirto ka badan tii maxaa la caanaha lo'da ku jirtay tan afraad waxaan ku soo koobaynaa caanaha ariga waxa ku yar maxaa la heerka maadada loo yaqaan lactose sokorta lactose wayna ka yar tahay tan marka loo fiirsho lo'da caanaha lo'da marka loo fiirsho lactose way ku yar tahay caanaha ariga sidoo kale faa'iido u tahay ilmaha xasaasiyo ku qabo lactose kan caanaha laga helo sababtoo ah caanahan ariga way ku yar yihiin maadadan lactose tan shanaad waxaan ka dhigaynaa oo maxaa la faa'iido ay leedahay waxa waaye waxa ku yar duhunta ku yar maxaa la duhuntane way duhunta ku yar maahan waxa waaye duhunta maxaa la ku badan oo muhiim u ah dheefshiidka duhun oo waxa jirto duhunta laba ah mid mushabacal iyo mid khayr mushabacal marka duhuntan waa tii wanaagsaneed way u jirku wanaagsaneed duhunta midna jirku uma fiicna way dhibtaa midna way u fiican tan waa tii u fiicneed sidoo kale caanaha ariga waxay qayb weyn ka qaataan koritaanka garaadka iyo aqliga ilmaha waxayna siyaadiyaan nisbada ama heerka cunuga garaadkiisa ah ay siyaadiyaan qayb weyn ka qaataan koritaanka garaadka ilmaha marka taas waxay qaybta shanaad qaybta lixaad waxa waaye caanaha ariga waxay aad iyo aad ugu dhow yihiin caanaha hooyada marka loo fiirsho caanaha lo'da iyo caanaha geela iyo caanaha ariga marka la isbarbar dhigo caanaha ariga said ugu dhow caanaha naaska hooyada marka dhaqaatiirtu waxay dhahaan inta badan hadii oo maxaa la hooyada aysan cunuga nuujinaynin oo kala caanaha naaskeeda ay yar yihiin waxa wanaagsan inay ku kabto caanaha ariga inay ku kabto wanaagsan ayaga u dhow maxaa la caanaha hooyada u dhow tan toddobaad ugu dambeysay waxa waaye nisbada cholesterolka ku jirta caanaha ariga way ka yartaa tan ku jirta caanaha lo'da marka hadii oo familka kale history ah cholesterol ay qabeen oo kale cunuga waxa u fiican in la siiyo maxaa la caanaha ariga sababtoo ah cholesterolkooda way yar yihiin marka la barbar dhigo caanaha lo'da marka intaas ku soo koobi doona 7 faa'iido ay leeyihiin caanaha ariga waxaan kaloo insha Allah rajaynaa inaan ku daro waxa wanaagsan in laga soo qaato caanahan oo kale oo hadii adiga ay xoolo ku joogan waa okay hadii si ku joogin waxa wanaagsan maxaa la meel la hubo oo nadiif ah inaad ka soo shubatay sababtoo ah caanahan borotiinka ku yar lactose ku yar maxaa la waxa ku yar cholesterolka ku yar marka si aad u faa'iideysatid waxa haboon in maxaa la meel la hubo aad ka soo shubatid si wax la barxo kale aadan u helinin midda kale oo aan ku soo gabagabeeyahay waxay tahay caanaha marka ay dabiiciga yihiin oo sida neefka looga soo lisay ay tahay sorry hadii codkiina ka fogaaday caanaha waxay ku wanaagsan yihiin maxaa la aad u wanaagsan yihiin marka ay dabiiciga yihiin laakiin hal dhibaa jiro ah marka ay dabiiciga yihiin hadii la soo liso waxay ku jirta maada la yiraahdo maxaa la microbat ka marka hadii aadan karkarinin uma fiicna ilmaha waxa wanaagsan in iska karkarisid si maxaa la ay uga dhintaan microbatkan cunugna faa'iido caanaha ku jirto oo uga faa'iideysto marka waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ka faa'iideysataan
soo dhawaada like share noo saara si ay uga faa'iideysataan dadka kalena u sii gaaraan.